tijaabo lagu sameeyey dhul beereedkii baa waxaa lagu sameeyey tijaabadaasoo ahayd bariis. waxaa la soo saaray agronomistiyaal dalka u dhashay iyo kuwo kaleoo dibaddaba way yimideen way arkeen. waa 80maadkii waxaa la soo saaray halkii dalag 76 milyan oo ruux in lagu quudin karo ayaa la ogaaday. 76 milyan oo ruux يعني عدد ير maaha. annaga tiradeena marka ugu badato waxaa laga yaabaa inaynu nahay ilaa 20 milyan ayaa laga yaabaa. marka 76 milyan oo halkii dalag ah waxaa la arkay in dunida aynu quudin karno. waxaa la arkay in waxaa la diiday marka dalkan iyo dadkan inay ku soo laabtaan awooddii ay ahaa jireen berigii faraacinada, berigii ugu horeysay ilbaxnimadii ugu horeysay. tiktokii live-ka ahaa ee iminka dhow aan soo galay. marka waxa weeyaan waxaan kaloo kaga hadlay mashruucii faanoole wuxuu ahaa biyo xidheen dabkiisa ama korontadiisa ama electriciteeda ay gaadhi karto libooyo kenya ilaa looya cadde gaadhi karta ayay ahayd. haddaba waxaa la diiday awooddii ballaarhanayd ee annaga aan lahaan jirnay, soomaalida ay lahaan jirtay inay soo laabato. ganacsatadan waan ka hadlo waxay keenaan kalluun bay dibadda ka keenaan oo bad baanu leenahay, 2 webin waa leenahay oo waaweyn waa leenahay alxamdulilah. qudaar bay dibadda ka keenaan, qudaartii noo baxaysay mid lamid ayay keenaan, dalgii beeraha ka baxayay mid lamid ayay keenaan oo weliba qiimo aada u jaban ay ku iibiyaan si ninka beeraleyda soomaaliyeed uu u niyad jabo. haddaba dhalinyaro aqoon baa loo baahan yahay. aqoonteenu waa inay ku salaysnaataa diinta islaamka iyo damiir soomaalinimo jacayl inuu ku dhisnaadaa. haddaba si cadowgan daaqilka inooga jira aan uga hortagno waxaa loo baahan yahay in la sameeyo kolka hore dib u heshiisiin guud la sameeyo oo meel walba laga sameeyo. jubbaland laga sameeyo oo laga sameeyo koonfur galbeed laga sameeyo, puntland laga sameeyo, somaliland banaadir laga sameeyo, jabuuti laftigeeda laga sameeyo, mucaarad iyo muxaafid laysoo hor fadhiisiiyo, soomaali galbeed kadaalika laga sameeyo. kolkaa baynu isku duubnaan karnaa, aana cadowgan isku meel kaga soo jeesan karnaa. haddii kale cadowgii dibadda intaas ka eegaysid kii gudaha ku jira oo maaragtay curyaaminta inagu hayay, digaag laga keenay bariga fog iyo baraasiil laga keenay oo bisinka eebe lagu soo birayn ayaa la geeyaa magaalooyinka hadda aan soo sheegay oo idil ee soomaalidu ay leedahay. markaas soomaalihay dhalinyaro aqoontii ha baraarugto oo ha toosto. lifekii baan ku soo daray, ma garanaya anugu si wanaagsan uma aqaano, runtan iska sheeganaya. wixii waaba kala go-een, in yar unbaa la soo saaray mise waaba in yar baa loogu talagalay bahalka lifeka. marka waa idin salaamaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi